dowladda Kenya ayaa bixisay macluumaad dheeraad ah oo ku aadan xilliga dowladda Soomaaliya ay fasaxayso qaadka ka soo go'a beeraha dalkaas ee loo soo dhoofin jiray gudaha dalkeena Soomaaliya si loogu suuq geeyo. Wasiirka beeraha dalka Kenya oo u waramay wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegay in 5 bisha soo socota ee Luulyo dib loo fasaxi doono qaadka oo ahaa suuqii ugu weynaa Soomaaliya. iyadoo oo muddo 2 sano ah uu hakad ku jiray hoos u dhac aad u balaaran dhinaca dhaqaalahana uu ku yimid dalkaas Kenya. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in heshiis lagu saxiixi doono magaalada Nairobi oo ay tagi doonaan dalalkaas 2 toddobaad gudahood madax sare oo ka socota dowladda Soomaaliya. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ka gaabsaday ama uu diiday in uu faahfaahin ka bixiyo waxa ay Soomaaliya ay ku bedelanayso dib u furidda suuqii qaadka ee dowladda Kenya. si kastaba dowladii uu hogaaminayay madaxweyne Farmaajo ayaa 29 Maarso ee sanadkii 2020 waxa ay hakisay qaadka Kenya iyadoo oo sabab uga dhigtay cudurka COVID-19 waxaana muddadaas dhexdeeda cirka sii galay khilaafka dhinaca badda ah oo sababtay in safaaradaha la kala qaato iyo dhowr jeer oo uu fashilmay wadahadal lagu doonayay qaadka in lagu fasaxo maadaama suuqa kaliya ee heestaan uu ahaa midka Soomaaliya oo la keeni jiray 50 tan oo qaad ah. Cabdinaasir Socdaal, Dallis News.